أنا أتوقع أبورتنا منها كوسينو هاي ما هاي إن أنا ديالنا كم برنو وعلى إرادة كيا هو إيمان درن وهو إيمان درن بالإرادة نكا أما جماعة شاهد تدل بتا مقايد هذا مقايد دي ويتركوا أما قبك مقايد كشغينا ما كشاه أسود يرا يجي عليه شاهد شو سكرت ملا إن هذا المسافة نالي وحنا مركا ونقول دليا دولتها حاجة نقطة أنا قاعد نقول هي ديالي قبك وجورية هذا أنا أركو دليل أنا سلي هجرسها جرت إن أنا مدة أصوب بندقو غيرانات هذا ويصير أنه كنا ده وحن مركلي ولا لها الصوماليات رنسي دبده يجودها شوكة هلا تاجروا دولة أنت عن هاي السنة وتقرأ كريسان شو كبيروا وحن قواين ترجدي وقدم بيس هدي حتى كست صوب هذا قدم ولا من هي مشرو مركا أنه قرب استاجنوا أن تاجرنا هدي اللي جرنا أنا وهرينا نقف كنا قندونا هنا هذا منها واحد غلطتين ويا نو شيء يسمى بعد ما تنتهي صلاة ورنتي برنامج كان منها شو دبردي وبالله توفيق. قرب الله كتبه قري أو دنا كله حوانت كاركاي جد كحرن كاشان كوري هدي جدك لحري حدي ذايا أو قدنا إيش أنا قد بقرأ هنا كل بني إلا اللي العاصمات كوجرة دكاتير كانوا قرطان. وين أنكو قبنا؟ وانصومنا هاي وحواي إن شقارات سلهن مجالا عادلين المعنى قباهن ودوين كالله تحدث هاش لطن تصابي لا واحد أن كتاجن هاي ماشي هاي إن صابة دمت ما وجدتم حتى دولة إيد اللي هتايدنا السنة الشعب وعباية سوق بناني أنا كمع وحن دين لهنا أنا كمحلها سيج أنا كنرايد مؤونة قنونة وحن أنا كتاجرين وحن أنا كهرمر سنين مالهن هرمرين توحي كلمة الشعب هذا نقول لها وحن دين صوت ديارين لها كل بيدي إيوه وحي ماشى كسو أرجناي مركا waxaan soo aragnay waxa indhihiinu iyo aqligiinu diidayaan waxaanu soo aragnay daadad ka yimid buuraha warigii jubba iyo kii doolow oo isku daray saameyn weyn ku yeeshay yanaha goobihii dadku ay deganayeen waxaan kaloo indhahayga ku soo arkay deegaan ka hooseeya dhinaca horumarka deegaanada Soomaaliya gobolka Gedo waxaan isleeyahay oo lagu tiriyay inuu yahay gobolka ugu kheyraadka badan ee Soomaaliya hadii laga howlgalo waxa nasiib daraan isleeyahay uu sababsaday horumar la'aanta maamuladii soo maray gaar ahaan maamulkii inta badan dadku ay yiraahdaan maamulkii lagu diirsaday xukunkii kacaanka ahaa ee qabsaday dalka maamul gobolka isaga waxa uu uga tagay jid la'aan iskuul la'aan waxaad moodaa inaad joogtid 1880kii sida ay u dhisan yihiin marka waxaa sababtu maxay tahay isleeyahay sababtu waxaan qabaa in lagu mashquulay macnaha horumarin adigu meel kale sida noqotaba waxaan marka leeyahay waxaan marka ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh iyo dawladda jirtaba maamulkan hadda jira ee madaxweyne Farmaajo oo madaxweynaha Kenya in aan la dhihin madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka dhashay qabiilka reer Gadaha oo halka dega sida darteed hoos buu wax uga dhiibayaa in waxaan ka codsanayaa xildhibaanadu in macnaha sidii hore u dhacdayba in maskaxdooda taa aysan gelin idinka xildhibaano waa cid u maqan ma jirto mar raba inaan macnaha ku fogaado oo runtii waxaan shalay soo arkay geerida iyo dhibaatada iyo biyaha dadku saameeyeen waxa dhacday xataa in la isku dayay tagitaankii aanu tagi lahayn in jidgooyo loo dhigto